qareenada u dooday eedeysanayaasha ayaa maxkamadda gobolka Banaadir keenay markaatiyaal ay sheegeen inay yihiin dalaaladii dhulka u iibin jiray Maryama ayaga oo sidoo kale sheegay in eedeysanayaasha qaarkood lacagaha ay ka sameeyeen forex iyo maalgashiga dhulka la xiriira. eedeysanayaasha mid ka mid ah oo saddexaad oo lagu magacaabo Xasan Maxamed Ibraahim oo qof waayila oo jira da'diisuna ay noqonayso 71 sano. dabcan sida caadiga ah waan dareemaynaa waxyaabaha faldambiyeedka ka reeba qofka muwaadinka waxaa ka mid ah qofku haddii da'dii waxa waaye garsooraha uu ka cafinayo yani da'dii laga dhaafayo ciqaabta qofkaani wuxuu jiraa muwaadinkaani da'diisa waa 71 sano. sidaas daraaddeed suuragal maahan in lagu eedeeyo inuu nool yahay iyo inuu dhintay iyo guud ahaan lama cadeynin meesha uu joogo maqana kaliya ayaa la dhahay oo xafiiska waxa uu dhahay qofkaani waa maqan yahay dhammaantood waxa la yiri waa maqanayaal meesha ay ku maqan yihiin meesha ay ku noolaayeen meesha ay joogeen raadka ay mareen kaliya waxa la keenay bangi statement oo kaliya iyo lacago dad ay u tureen. dabcan gabadha lagu eedeeyay in ay macaamil la sameeyeen oo lagu magacaabo Maryam waxay cadeysay in lacagaha ay u soo tuurayeen ay ahaayeen lacaga forex ah